waxaa maanta magaalada Boorama si absamiya uga furmay shir lagaga hadlayo adkeynta amniga iyo iskaashiga labada dal ee Itoobiya iyo Soomaaliland waxaana uu shirkaasi socon doonaa muddo 2 maalmood ah. Shirkan ayaa waxa ka qayb qaadanaya maamulada gobolada Awdal iyo Salal oo dhinaca Soomaaliland ah iyo gobolada City iyo Faafan oo dhinaca Itoobiya ah. Waxa kale oo goob joog maanta ka ahaa mas'uuliyiinta kala duwan ee amniga gaar ahaan kuwa militariga, booliska, saraakiisha waaxda socdaalka, kuwa kastamada, maayarada degmooyinka hoos yimaada afartaasi gobol iyo mas'uuliyiin kale. wasiiru dawlaha dhinaca amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Maxamed Muuse Diiriye oo ugu horreyn shirkaasi furay ayaa waxa uu yiri halka waxa loo koowa in shirkii gobolada oo isku imanayeen Awdal, Salal, Faafan iyo City afarta gobol isku imanayeen inaan maanta halka furano waa inoo furan yahay shirku waxaan raacinaya runtii ajendayaasha iyo qodobadii heshiiska hore inuu soo galo waxaan maanta u baahanahay daadajintii qodobadii aan ku heshiinay inaan hoos u daadajino oo aynu gaarsiino degmooyinkii qodobada dhinaca amniga taabanaya ee shirkan lagaga hadlayo oo ahaa kuwa hore loo sii go'aamiyey ayaa waxa si aadan looga taxadiray in ajendaha la baalmaro waxaana ahmiyadda ay leedahay ku taagnaanshaha ajenduhu ka warramay badhasaabka gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax oo shirkaasi isagu martigeliyey. shirka anaga idin hogaamin doona qodobada lagaga hadlaya waa ka wasiirku inoo taabtay waa heshiiskii hore sidii loo dhaqan gelin lahaa iyo wada shaqayntii sida darteed inaanu ajandu inaga baydhin qofkii su'aal qaba inta shirka jeer garaynaysa ayaa siin doonta hadalka martidana waa soo dhaweynaynaa. Cabdalla Ali Yusuf, Home Cable TV, Boorama.